Bismillahi Rahmaani Rahiim. Kusoo dhawaada koorskeeni English Vocabulary in Use levelkiisa elementaryga oo ah levelka ugu hooseeya ee buuggan. Buuggan waa buug aad loo diyaariyey oo ay samaysay jaamacadda faca weyn ee loo yaqaano Cambridge. Hadafka buuggan loogu talagalay ma ahan in focuska lagu saaro grammar iyo waxyaabo noocaas kale ah. Buuggan waxaa la rabaa in hadafka lagu saaro xoogga in qof kasta uu wax ku barto vocabulary. Qof kasta Englishka u yaqaano waxay ku xiran tahay vocabulary-ga ama ereyada u yaqaano. Haddii dhegeysi timaado waxaa maqli doontaa oo keliya ereyada aad taqaanid ayaa fahmi doontaa bis. Haddii akhris timaado waxaa laga yaabaa oo keliya in aad fahmi kartid akhriska ereyada aad hore u soo baratay. Saas darteed markaa haddii qofka inuu hadlo uu rabo wuxuu hadli doonaa qof kasta tabarta inta vocabulary uu haysto. Marka buuggan waa buug focuska nooca saari doono oo loo yaqaano English Vocabulary in Use. Imtixaano oo lahaan doonaa marka levelkan ayaa wuxuu noqon doonaa levelka ugu horeeya oo buugga loogu talagalay. Buuggan wuxuu ka koobnaan doonaa ilaa iyo 7 modules. 7 cutub ayuu ahaan doonaa. Haddaan fiirino module 1. Module 1 waxaa loogu talagalay magacan people. Haddaa fiirisaan dhammaan marka la soo koobay people ayaa la bixiyay. Unit 1 wuxuu ka sheekeyn doonaa the family tree. Familka xiriirka ka dhexeeya aabbaha, hooyada, xaaska, ilmaha iyo waxyaabahaas oo kale. Birth, marriage and death. Ereyada la xiriira dhalashada, guurka, dhimashada, erey la xiriira. Sidoo kale chapter 3 waxaan halka arki doonaa parts of the body. Qaybaha jirka inaan kala barbarano. Ugu dambeyn waxaan baran doonaa chapter 4 clothes. Noocyada kala duwan ee dharka iyo ereyada loo isticmaalo. Waxaan xiranayaa, waxaan xiranahay, waxaan wataa waxyaabo noocaas kale ah. Describing people ayaan arki doonaa isagana chapter 5. Dadka sidee loo tilmaamaa wuu qurxoon yahay, wuu cayilan yahay, wuu dheer yahay, wuu gaaban yahay iyo waxyaabo lamid oo kale. Sidoo kale unit 6 waxaan ku arki doonaa ereyada la xiriira caafimaadka, xanuunka, madax xanuun, lug xanuun, matag, waxyaabo noocaas kale ah. Feelings dadka dareemaha farxadda, xanaaqa, murugta, waxyaabo la xiriira. Kadibna qof kasta waa inuu isticmaali karaa maanta waa xanaaqsanahay, waa faraxsanahay iyo waxyaabo lamid oo kale. Kadib chapter 8 iyo chapter 9 wuxuu waxyar naga bari doonaa buugga conversations la xiriira dadka daily use ereyada ay isticmaalaan markay sheekeysanayaan sida markay isku hambalyanayaan, markay is salaamayaan, markay wax ka qaldamaan, waxyaabo noocaas kale ayaan fiirin doonaa insha Allah markaas. Kusoo dhawaada marka unit 1 oo aan ugu mahadnaqnay the family. Chapterkan wuxuu ku saari doonaa xiriirka ka dhexeeya familka. Familka maxay isku yihiin hooyo, aabe, wiil, gabar, awoowe, ayeeyo, adeer, abti. Marka ereyada saarna inaan baranno bal aan isla fiirino bal mid markaa. Intaan sharaxaad bixin marka hore waxaan isla fiirin doonaa family tree-gan marka hore aan isla fahanno si sharaxaadda ay noogu fududaato markaas. Haddaa fiirisaan hadda wareeg kasta waxaan arki doonaa waxaa ku jiro 2 qof oo ah hooyadii aabbaha ama nin iyo naagtiis. Ballaar haddaa aragtaan waxay la mid tahay ayagaa sii dhalaamina. Haddii falaarka ka sii baxdo marka kanan soo raaci doonaa hadda Henry and Diana waa familka meesha ka soo farcama waa awoowaha iyo ayeeyada. Waxayna dhaleen 3 Amelia, Evan and Anne oo ayagana meesha ka sii farcameen maybe Evan bas dhaleen. Evan wuxuu sii guursaday Anne. It means labadan waxaa ka sii farcamay Karen and Jack. Marka waxaan isla fiirin doonaa xiriir ka dhexeeya dadkan oo dhan markaa. Tusaalahan hadda waxaa ognahay Karen iyo Jack iyo Ravi and Kavita. Maxay isku yihiin? Waa dad oo ilma adeero, ilma abti, ilmeeda ama laba yihiin. Because laba wada dhalatay ayaa kala dhashay. Sidoo kale labadan way isla dhasheen. Kuwaan waxaan u noqon doonaa ilmaha ugu hooseeyo awoowe iyo ayeeyo u noqon doonaan. Marka ereyada saarna isla fiirino maadaama sharax faham guud aan ka qaadanay bal waxa ay isku yihiin aan isla fiirino mid markaas.
A. Family words. A family tree for some of Anne and Ivan Sorokin's relatives or relations. Ivan and Anne and their children. Ivan is Anne's husband and Karen and Jack's father. Anne is Ivan's wife and Karen and Jack's mother. Anne and Ivan are Karen and Jack's parents. Karen is Anne and Ivan's daughter. Jack is their son. Karen is Jack's sister. Jack is Karen's brother. Okay, intaas aan isla fiirino marka hore qaybta dhexe oo aan isla arki doonaa. Og waxaan ku saari doonaa qaybtan dhexe, labadan dhexe. Ivan is Anne's husband. Markas xog waxaan ku saari doonaa ereyadan boldiga. Bold waa ereyada farta burburan ku qoran. Ereyasa loogu talagalay in aad loo fahmo. Horta markaan soo fiirino relatives and relations, dadkan qaraabada ah iyo xiriirka ka dhexeeya aan isla fiirin doonaa. Ivan and Anne are their children. Waa caruurtooda waaye. Ivan and Anne's their children and their children iyo caruurtooda. So haddaan ku bilowno Ivan is Anne's husband. Waa ninkeeda Anne, ninkeeda waaye. And Karen and Jack's father. Ivan wuxuu kaloo yahay Karen iyo Jack aabuhuna uu yahay. So Ivan laba shaqo isku hayaa. Ivan waa Anne's husband, ninkeedana uu yahay. Karen and Jack's fatherna uu yahay. Dhankeeda kale marka ayadana fiiriyo maamadan Anne loo yaqaano, maxay noqonaysaa ayadana Anne and Ivan are Anne is Ivan's wife. Marka koowaad waa xaaska Ivan. Sidoo kalena waxay tahay Karen and Jack's mother na way tahay. Karen iyo Jackna hooyadana way tahay. Haddii aya aan fiirino labadooda isku dhegan, Ivan and Anne are Karen and Jack's parents. Labadooda isku dhegan waxay noqon doonaan waalidiin ayay noqon doonaan, ee u noqon doonaan caruurtan. Hal haddaan u fiirino, Karen is Anne and Ivan's daughter. Jack is their son. Markasan gabadhan waxay noqonaysaa daughter, gabadha familka dhaleen, daughter. Wiilkan wuxuu noqonayaa son. You see? Son. Okay. Qaybtan waxaan kusoo gabagabayn doonaa Karen is Jack's sister. Karen waa Jack's sister. Waa Jack walaashiis. Haddii ayadan ku hormarnane, asagadaan ku hormarnane wuxuu noqonayaa Jack is Karen's brother. Jack is Karen's brother. Waa walaalkeed waay. Okay, qeybaha xiga aan fiirino markaan maxay isku yihiin kuwa kale markaa. Henry and Diana. Henry is Karen and Jack's grandfather. Diana is their grandmother. Henry and Diana are Karen and Jack's grandparents. Karen is Henry and Diana's granddaughter. Jack is their grandson. Okay, bal intaas la fiirino. Henry and Diana waa familka meesha uu kasoo farcamo waaye. Waa awowaha iyo ayeeyada qoyska. Haddii aan isla fiirino, Henry and Diana and Jack's grandfather. You see? Waa Jack's grandfather. Markasan grandfather ayuu noqonayaa. Diana maxay noqonaysaa ayadana their grandmother ay noqonaysaa, ayeeye noqonaysaa. Ilmahan ayeeye u tahay. Henryna ilmahan wuxuu yahay grandfather. Isku darka labadooda waxay noqon doonaan grandparents. Isku noqon doonaan grandparents. Isku noqon doonaan. Henry and Diana are Karen and Jack's grandparents. Okay. Mar labaad, Karen and Henry and Diana's granddaughter
granddaughter waaye. Gabadhan waa granddaughter. Wiilkan wuxuu noqon doonaa grandson waa wiilka oo loo yahay awoowaha ama ayeeyada loo yahay. Karenna waa grandson waa gabadha loo yahay awoowe ama ayeeyo. Haddaan isla fiirino qaybta ugu dambeyso. Amelia, George, and Mina. George is Karen and Jack's uncle. Amelia and Mina are Karen and Jack's aunts. Karen is Amelia, George, and Mina's niece. Jack is their nephew. Kavita and Ravi are Karen and Jack's cousins. Okay, section A aan soo gabagabayna markaa. Isla ilmaha aan rabnaa inaan ogaano xiriirka la dhexeeya dadkan kale. Amelia iyo George maxay u yihiin kuwan? Maadaama ay la dhasheen aabahood ay la dhasheen marka maxay u naqanayaan? George haddaan fiirino George is Karen and Jack's uncle. Waa adeerkood waaye. Maadaama uu aabahood la dhashay wuxuu noqonayaa adeerkood. George wuxuu noqday Karen and Jack's uncle ayuu noqday. Gabdhahan waxay noqonayaan Amelia and Mina waxay noqon doonaa ayagana are Karen and Jack's aunts. Ayagana habeeryaal waaye ama eedayaal waaye. Englishka labadaba eedo iyo habeer wuxuu iska dhahaa aunt ayuu dhihi doonaa aunt. Okay. Sidoo kale habeerta ama eedada ama adeerka wiilka ay u yihiin waalidka wuxuu noqon doonaa iyo gabadha ay waalidku yihiin aan isla fiirin doonaa ayagana. Karen gabadhan ku hormari doonaa. Karen is Amelia, George and means niece. Gabadha waalidka loo yahay ayadana waxaa loo yaqaanaa niece aa loo yaqaanaa waa gabadh. Adiga hataa gabadha abtiga u tahay waxaad dhihi kartaa oh she's my niece aa dhihi kartaa gabadhan waa gabadha aan u ahay waalidka. Abti ama adeer. Okay. Wiilkana maxaan dhihi doonaa ii sheega nephew and Jack is their nephew. Nephew wiilka ay u yihiin waalidka waxay u yihiin habeeyar ama u yihiin ama waxyaabahaas kale. Ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabayn doonaa familkan oo ilma adeerka ay yihiin aabahood la dhashay marka maxay u noqon doonaan Ravi and Kavita. Kavita and Ravi's are Karen and Jack's cousin. Waa ilma adeer waaye ama ilma abti ama ilma eedo. It means waxaa idin kala dhashay laba wada dhalatay idin kala dhashay. Saas darteed waxaan dhihi doonaa markaas my cousin aa dhehaysaa markaas. Gabadha ilma adeer aad tihiin waxaa dhehaysaa she is my cousin. Wiilka ilma adeer aad tihiin ama ilma abti waxaa dhehaysaa he is my cousin. Section 1 halkaas aan gabagabayn doonaa. Section 2 aan isla fiirin doonaa expressions oo muhiim u ah familka erey la xiriiro. Sidee qof u weydiin kartaa carruur maxaa la dhalatay familkiisa ma ballaaran yihiin mise waa yar yihiin iyo waxyaabana waan fiirin doonaa. Marka hore asal dhigaysana bal aan isla fiirino mid mid. B. Expressions. Have you got any brothers and sisters? No, I am an only child. Do you come from a big family? Yes, I have 3 brothers and 2 sisters. Alright. Bal aan isla fiirino. Have you got any brothers and sisters? Waxaad dhihi kartaa qof. Wiilal iyo gabdho ma kula dhasheen. Waxaan ka soo qaadaynaa in aysan wiil iyo gabadh aysan kula dhalan oo aad tahay madi. Sidee loo dhahaa Englishka madi ayaa ahay. Qofkan wuxuu dhahaa no, I am an only child. Aniga waxaan ahay an only child. Madi ayaan ahay keli. Hooyaday iyo aabahay aniga bes ayay dhaleen. An only child. Ergaasaa muhiim ina fahantaan. An only child. Do you come from a big family? Adiga big family maa kasoo jeedaa. Big family waxaa laga wadaa family oo walaalo fara badan wiilal gabdho fara badan maa kasoo jeedaa mase small family oo hooyo aabi hal wiil hal gabar. So qofkan wuxuu dhahay yes, I have 3 brothers and 2 sisters. Aniga waxaan leeyahay 3 brothers 3 wiil ayaa la dhalatay
and 2 sisters iyo 2 gabdhood. Common mistakes ayaan fiirin doonaa. Khaladaadka badan ay galaan oo la rabo inaadan dirin adiga. We say my wife, his wife, xaaskeyga, xaaskiisa, waa dhihi kartaa waxaas oo kale. Singular. Markii ay timaado plural, maxaa la samayn doonaa? Our wives adhesa. Wife waxaa u dambeeya fiirisid fe ayaa u dambeyso. Marka laga dhigayo plural maxaa la sameeyey? ft ayaa waxaa lagu bedelay v ayaa lagu bedelay. I think ina fahmaysaan. Marka waxaa dhehaysaa our wives adhesa. Xaasaskeena, you see, and so on. Halkaas aan ku gabagabayn doonaa chapter 1. Waxaan rajayn doonaa insha Allah chapterkaas in wax badan aad ka fahanteen. Si aad u xaqiijis chapterkaas inaad aad u fahantay, waa in aad ka shaqeysaa chapterka exercise ayuu wataa oo page-ka ku xiga. So page-kaas waa in buugu inuu ku daabacan yahay, kadibna qalinkaada aad qabsataa si lagugu imtixaano ereyada inaad fahantay iyo in kale. Halkaas aan ku gabagabayn doonaa insha Allah chapter 1. Waxaa inoo baran insha Allah chapter 2 iyo next episode insha Allah. Waa mahadsantihiin.